waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta qiimaha badan intuu soo dhawaada daawashada video. Waxaan marka koowaad u hambalyaynayaa dhalashada sanadka cusub. Taasi macnaheedu maahan inaan u dawaadadayno sanad cusub, waxaan rabnaa inay noo noqoto boonta fiican aan wax ka bilaawno. Haddii ay soo dhaafeen sanadihii hore, weli waxaad haysataa fursad aad u faa'iidaysan kartid. Maanta waxaan rabaa inaad isweydiiso su'aalo ay aqoon tahay inaad naftaada weydiiso si ay qorshahaada sanadkan ay u hirtiraan. Su'aasha koowaad waxay tahay, maxaad u qorshaysay oo hadaftaadu yahay inaad gaartid sanadkan hadda bilowday? Su'aasha labaad waxay tahay, sidee ayaad u gaari kartaa? Halka su'aasha saddexaad ay noqonayso, ma leedahay qorshe qoran? Intaasi jawaabahoodana waa nila wadaagi doonaa insha Allah. Haddaba maanta waxaan rabaa saddexdaas su'aal inaan u wada jawaabno si wada jir ah. Waxaa hore loo yiri, markaad daqiiqadaada qorshayso ayaad maalintaada qorsheyn kartaa. Markii aad maalintaada qorshaysana waxaad qorsheyn kartaa usbuucaada. Markaad usbuucaada qorshaysana waxaad qorsheyn kartaa bishaada. Markii aad bishaada qorshayso waxaad qorsheysaa sanadkaada iyo noloshaada inta ka hartay. Waa silsilad isku xiran. Haddii aad saxdo process-taada hore, way sixmi doonaan inta kale insha Allah. Waxaan rajeynayaa inaad muhiimadda aad fahantay. Aan u noqon su'aalihii. Su'aasha koowaad waxay u dhacaysay, maxaad u qorshaysay oo hadaftaadu yahay inaad gaarto sanadkan cusub oo hadda bilaabanaya? Waxaa mahad oo dhani u sugnaatay Allah subxaanahu wa tacaala oo si nabad ah noo soo gaarsiiyay sanadkan hadda cusub ee 2022. Si aad u ogaatid aan u barayn daraysid qorshahaada aad rabto inaad sanadkan dadul gaarto, marka hore u bax meel bannaan aysan qof joogin. Waxaad hore u sii qaadataa qalin iyo buug yar aad ku qorto waxaad baran dareynayso aad rabto inaad sanadkan qorshayso. Marka ugu horeyso waxaad u qortaa si caadi ah adoo aadin. Markaas dabacdi aad dhammayso waxaad samaysaa shandeen adigoo horumarinayo adoo u tala horumarinayo sida ay u kala muhiimsan yihiin. Su'aasha labaad oo sidee ayaad u gaari kartaa hadaftaada aad rabto sanadkan? Midda ugu muhiimsan ayoodtaada u gaari kartid ayaa waxay tahay joogteyn. Haddii aad joogteysid waxaad rabto inaad gaarto ay ka mid noqdaan waxyaabaha aad maalin walba aad samaysid, waa hubaal hadaftaas waad gaaraysaa. Buugga Atomic Habits uu qoray James Clear ayaa wuxuu u dhahayaa, haddii aad rabto result wanaagsan, iska hilmaam hadaftaada. Waxaad diiradda saartaa nidaamka aad joogto. Ma leedahay yool qoran? Markii aad leedahay hadaf qoran, way ka muhiimsan tahay wayna ka fiican tahay midda aan qornayn. Hadda door ayaa daraasad ku sameeyay jaamacadaha dalka Mareykanka ayaa waxaa arday aan imtixaanin tiradooda ayaa waxaa la weydiiyay inay leeyihiin qorshe qoran oo ku aadan 10 sano ee soo socda. Waxaa tiriya qorshe qoran lahayd 3 arday. 10 sano dabacdi waxaa 3 arday ay nolol wanaagsanayeen eena tan lacag badnaayeen istu dar dhammaan ardaydii kale. Waxaan rajeynayaa sanadkan inuu noqdo sanad wanaagsan oo aad wax badan ka faa'iido insha Allah. Adina dadaal. Ma rabo video inuu sii dheeraado. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Peace.